الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. marka hore waan salaamayaa subax wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Waxaan doonayaa inaan siiyo warbixin kooban oo ku saabsan socdaal aan ku soo maray 3 wadan dhawaan. Socdaalkaas wuxuu bilowday 16 bishii May waxaan ku soo noqday wadanka 29 bishii May. waxaan soo maray 3 wadan, wadanka Sweden iyo wadanka Ingiriiska iyo wadanka Mareykanka. wadanka Ingiriiska, wadanka Sweden oo ugu horeeyay waxaan kala qayb galay furitaankii xafiiska Somaliland ee Sweden ayaan kala qayb galay. waxa xafladda ka soo qayb galay dad fara badan oo ka socda bulshada reer Somaliland iyo saaxiibadooda oo ay ku jiraan xubno ka socda baarlamaanka wadanka Sweden. si wanaagsan bay u dhacday. waan ka soo gudbay, waxaan u soo gudbay wadanka Ingiriiska halkaas oo aan kala qayb galay xafladii xuskii 18 May shir weyn oo halka lagu qabtay. isla markaana waxa bulshada aan kala qayb galay barnaamij laga sameeyay wadanka Ingiriiska kala qayb galay laftigeeda. waxa kula fursad aan u helay inaan wareysi badan aan la yeesho saxaafadda, BBC-da, raadiyoga, telefishinka, joornaalo kale oo ay ka mid tahay joornaalkan Financial Times-ka. waxaan kala kulanay khubaro fara badan, niman loo yaraa dad badan baan runtii halkaan kala kulanay. waxaan uga gudbay wadanka Ingiriiska, wadanka Mareykanka, halkaas oo aan si rasmi ah uga furay xafiiska Somaliland ay ku leedahay dalka Mareykanka. intii aan joogay waxaan fursad u helay inaan la kulmo madax ka socota dawladda Mareykanka, xubno ka mid ah Congress-ka ama baarlamaanka Mareykanka laftigiisa, saxaafadda, khubaro kale ayaan la kulanay. si wanaagsan ayuu runtii ayuu noogu dhacay kulamada aan la yeelanay dadka kala duwan oo dhan. markii dambe waxaan uga gudbay magaalada Washington, magaalada New York, halkaas oo aan kula kulmay madax ka mid ah jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa. ujeedada socdaalku runtii waxay ahayd in aan kala qayb galo markii hore baan sheegay bulshadeena xuska xafladda 18 May, isla markaana sidii aan u xoojin lahayn xiriirka naga dhaxeeya innaka iyo wadamada aynu soo maray. dhinaca maaha dhinac walba, dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca siyaasadda iyo dhinaca iskaashiga intaba sidii aynu xoojin lahayn. marka runtii halkan waxaan kala kulanay soo dhaweyn badan, waan kala kulanay guula, waa kala kulanay rajo badanna waa ka qabnaa. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingiriiska iyo ta Mareykankuba had iyo jeer waxay soo saaraan talo ay u jeedinayaan shicibkooda marba xaaladda nabadgelyo siday tahay wadamada guud ahaanba caalamka oo dhanba oo Somaliland ay ka mid tahay. talada imka ay ka bixiyeen markaad eegto website-kooda markaad gasho runtii mid cusub maaha, waa mid bariyahaaba jirtay weeye. wadanka wadankii Soomaaliya la isku oran jiray Somaliland iyo Soomaaliya imika waa la isku qaadaa xaaladiisa. waa xaalad adag baa la yiraahdaa, waa looga digaa dadka doonaya inay u safraan. waxaa laga reebaa magaalada Hargeysa iyo magaalada Berbera ayaa laga reebaa. runtii taladaas mid inagu habboon inaka maaha, waayo xaaladda nabadgelyo ee ka taagan Somaliland way ka duwan tahay xaaladda nabadgelyo ee ka taagan Soomaaliya. halka runtii waxa ka jirta cadaalad darro ayaa ka jirta. haruna waan uga wada hadalay. waxaan rajeynayaa runtii arrinka in la saxo oo maxaan yiraahdaa dadka dee warka saxa loo sheego Somaliland waa meel nabad ah la iman karo. iminkaba waa la joogaa, qofkuna ma taqaanaa aanu kala kulmaynin wax ma taqaanaa argagixisada ama dhibaato ah.